qof kaste oo dhibaato ay haysato suuradan akhriso ku celceli ilaahay idinkiisa suuradda fawaa'ideeda nabi maxamed baa inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam suuraddu Soomaalidu waxay jeceshahay markii wax loo sheego oo aan lagu celcelin suuraddu waa tan qabsan markaa suuratu qul walle ama suuratu ikhlaas suuradaas nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay saddex jeer qofku markuu akhriyo inay la mid tahay sidii qofku quraanka dhan inuu dhameeyay ama quraanka dhan uu khatimay fawaa'id iyo fadaa'il aad u fara badan ay suuradaas leedahay suuradaas maalintii talaadada waxaa jirto quraanka qaybta groupka galabtii ee yimaado ayaan ku akhrinay gabdho badan waa imaaday oo xilliga iskale suuradaas maalintii yaani waxaan u maleynayaa adiga 2 hours ku dhawaad baan waday ruqyadaas wax kale ma akhrin qul walla bisan ku celcelin ma jiro qof meesha fadhiyo oo suurada aysan saameyn khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed ee sixirka uu dhibayo waxa loo soo dhiibaa jiman yahuud ah oo gaala ah oo diinta Ilaahay aan rumaysnayn awoodna sheeganaya marka aad tiraahdo qul huwallahu ahad Allahu samad aayad ay ka gubteen labada aayad marka la soo dhaafo waa aayadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad walam yakul lahu kufuwan ahad maxaa yeelay jinkan wuxuu iska dhigaa isaga inuu awood leeyahay oo isagu bimacna naftiisa buu ugu sheekeeyay maadaama uu duulo oo Ilaahay inuu duulo mar uu bahal iska dhigo mar uu bilaadan iska dhigo wuxuu rabo iska dhigo inuu Ilaahay u fududeeyo rabbigiisu ku kadsoomay markaa muxuu isbidayaa awood suurada markaa tiraahdo walam yakul lahu kufuwan ahad markii aad tiraahdo ku celiso oo aad halka qirto Ilaahay wax la mid ah oo awoodiisa iyo xigmadiisa iyo qudradiisa iyo wax walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku saabsan wax la mid inaysan jirin markaad aayada ku qorto horta marka koobaad ihaana ku dhacaysa ihaana rabbaaniya aad waxaad arkaysaa gabadh cirfiid ka qaylinay ama aabihi cirfiidka uu ka qaylinay waxaad arkaysaa markaad ku akhrid aayada waliba aad ku celcelisid inuu cabaadayo oo awoodi uu oynayo oo halka qirayo ihaana ku dhacayso inay aayadaasi gubtay awoodiisa inay tiraahdo been baad sheegaysaa maxaa yeelay cirfiidka qofka marka loo soo diro sixirka cirfiidka qofka marka loo soo diro wuxuu aaminsan yahay yaani awood inuu haysto aan cid kale haysanin maadaama sixir intuu ka soo qaadi karo adduunka meesha u dambayso inuu kalamxil basar inuu ku gaari karo ilbiriqsi wax ka yar waliba inuu ku gaari karo wuxuu aaminsan yahay marka iska dhaadhiciyo awoodan inuu isagu leeyahay rabbigiisi abuurtay buu ku kufriyay rabbigiisi abuurtay awoodiisu diidan yahay isaga iska dhaadhicay marka awood buu isbidaya marka dadkan iyo waxan buu wuxuu arkaa cayaan wa ficlan wax badan baan arkay aayada markaad ku celceliso marka koobaad wuxuu qirayaa oo yaqiinsanaya awoodiisu inay tahay been markaad ku celiso mar labaad oo aad ku gubto aayadaasi intay awoodiisa baabi'iso oo ay gubto buu oohin afka furanaya khaasatan gabdhaheena iyo wiilasheena sixirka lagu baabiyay suuratu qul walla qabsada qof ilahaysa ma jiro mid sixir haya ma jiro dhamaantood waa ka wada qeylisiis suuradu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay quraanka oo dhan waa suurada ugu weyn aayada waxa ugu weyn aayatul kursi quraankan waxa weyn qul walla war hooykiisa kor qabow suurada isku daawe warkii dhikar qabow isku daawe warka sixir qabow isku daawe warka ilmo rabow isku daawe suurada anigu mucjizan ka arkay maalintii dhaweyto daqiiqadahaas ama saacadaha aan ka waday waxaan ka arkay wax aanan hor uga arkin qul walla gabalku markuu dhaco waagu markuu bari afka ku hay waxa ka soo laabta ama aad ka aragtana nala wadaag insha Allah ta'ala marka koobaad suuradu waa duco marka labaadna suuradu waa raxmayn naxariis adiga ay ku tahay marka saddexaadna suuradaas waxay burburin doontaa ay xasan oo jirka ku jiro ayin kan nooc raba ha ahaado
ilaahay idinka way burburin doontaa waa marka afraad saddex jeer markaad akhriso waxa la mid tahay adiga quraanka oo dhan dhameeyay u niyeyso quraanka oo dhan inaad dhameysay quraanka oo dhan meequn fawaa'id iyo baraka iyo khayr uu leeyahay adaa iskugu filan ballankeena waa suuratu qul yaani qul wal wa suuratu al-ikhlas aniga waxa aan ka arkay inaba caadi ma waxaan markaa kugu dhiirigelinayaa walaalkayga muslimka walaashada muslimadu bacana waxaan arkaa dad fara badan oo meesha laga jira garan la ama dad fara badan oo dhiban oo cilaaj ka soo daalay ilaahay darti ugu sheer garee ilaahay dartiisan kugu soo gudbinaya suuradaas waliba nabi sallallahu alayhi wasallam waxaan filayaa xadiis bay ahayd qofkii akhriya miya maalintii 10 jeer in guri jannada laga dhisay walow aan saxiix aanan hubin laakiin kuwan kale oo saxiixa ay buuxaan xadiista oo ka hadlay suurada waxaan ku leeyahay walaalkayga muslimka walaashada muslimada walaalka oo dhiban u sheer garay insha Allah ta'ala in ilaahay ajar ka siiyo ilaahay dhibta kaga dulqaado adiguna ajar aad ka heshay assalamu alaykum wa rahmatullahi